maanta waxaan la kulanay gudoomiye ku-xigeenka ururka Soomaalida ee Jarmalka Naas Shaakir oo muddo xilka haya waxa uu ku jiraa hawsha maanta ku soo dhawaad dadka cusub ururka goobtii la aasaasay iyo ujeedkoodii loo aasaasay سعيد أدبيات أمها ستة مركب ورئيسة ururkan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Soomaalisha journalisten waxa la aasaasay sanadkii 2013 bishii June 8deedii ujeedka loo aasaasana waxay tahay mar walba marka dad isku shaqo tihiin meel isla joogtaan waxa muhiim ah in la midoobo waxa ugu weyn aan marka u aasaasana waxay tahay bal horta marka hore inaan midoobno kadibna aan raadsano fursadaha wadankan yaala oo ay kamid tahay sidii loo horumarin lahaa aqoonta saxafiyiinta wadankeena markii aan joognay runtii saxaafaddu waxay ahayd mid balaaran oo mar walba ka shaqeyn jirtay danaha iyo maxaan ku raahdaa horumarinta iyo waliba sidii ummadda Soomaaliyeed wax lagu qaban lahaa marka ujeedka loo aasaasay waxay tahay bal in aan mar walba dhaxdeena mideysnaano kadibna aan aqoonta aan halkan ka helin ugu sii faa'iideyno dadkeena Soomaaliyeed hadda maxay noo qabsoomay soo kooban hadda waxa noo qabsan waxay tahay horta marka hore inaan aasaasnay xafiiskii aan ku shaqeyn lahayn oo ku yaala magaalada Frankfurt ee wadanka Jarmalka inta kadibna waxa sidoo kale wax ka qabanay arrimaha la xiriira fake news-ka oo tababaro saxaafadda ku saabsan hadda aan wadnay inaan sameeyno waayo waad ogtahay in dhibaato badan ay ka jirto dhinaca social media-ha oo isku dhaxmilmeen saxaafaddii runta ahayd iyo midii aan dhalateedka ahayd yaa ka warantaa saxafiyiinta ururkan Soomaalida Jarmalka ku mideysan Jarmalka jooga iyo kuwan wali aan ku mideysnayn saxafiyiinta Soomaaliyeed ee wadankan jooga ee hadda ku mideysan ururka saxaafadda ee wadankan aynu ka dhisnay waa 38 qof waxaan rajeynaynaa kuwa kalena inay nagu soo biiri doonaan dhawaantan ilaa hadda waxaan baadi goobeynaa bal wariyaashii kale ee wadankan joogay ina ururku ay markaasi qayb ka noqdaan hadii la raado waayo qof walba oo wariye ah ay ururkan u furay wariyaasha kale wali waqti baa dabcan mar walba ururka waa idin furay yahay oo ku soo biiri kartaan madax baa ka noqon kartaan waxaan raadinayna waxay tahay midow dalad adag inay meesha ka dhisnaato si fursadaha wadanka yeelan ugu faa'iideysan ilaa hadda ururada kale saxaafadda qacansaar leedahay kuma urur kale saxaafadda ee wadankan ka dhisan ayaan xiriir fiican la leenahay sida wadamada Nigeria, Eritrea iyo Serbia oo runtii muwaadiniintooda halkan ay joogaan soo kale waxaan xiriir fiican oo aad u wanaagsan la leenahay ururada saxaafadda caalamiga ah gaar ahaan ururka loo yaqaan Reporters Without Borders ama wariyaasha xuduudda lahayn gudoomiye ku-xigeen walaxa naga wada hadafyada xisbiga leeyahay runtii waxay noo qorsheysan inaan ururka ballaarino maadaama wadankan uu ka dhisan yahay inaan gaarsiino wadankeeni inaan marka xafiisyo waaweyn ka furano magaalooyinka wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo magaalada Boosaaso saddexdaas magaalo hadda noo qorsheysan inaan gaarsiino ururka hadii la yiraahdo oo aan ugu faa'iideyno wariyaasha anagana la midka ah ee halkaas ka shaqeynaya hadii ay noqon lahayd horumarinta aqoontooda saxaafadeed inaan halkaas geeno dad aqoon u leh saxaafadda oo seminaar halka ugu qabtay insha Allah saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan u soo jeedinayaa in ay mar walba ka feejignaadaan ama ay ka taxadiraan wararka ay sameynayaan waayo carabku waa wax muhiim ah oo u baahan in la ilaaliyo hadalka ka fakada wuxuu dhaawici karaa dad badan dhibaato u geysan karaa marka mar walba waxa fiican wariyaashu inay runta sheegaan oo ay ka fogaadaan warar qotorkoteen loo yaqaan xaqiiq aan ahayn inta noqon lahayd qof kii ugu horeeyay ee been sheega noqon qofka labaad ee war saxan sheega sidoo kale